ka badan 200 ergey kuwaas oo ay ka mid yihiin salaadiin siyaasiyiin cuqaasha waayeelka culimaadiinka haweenka dhalinyarada aqoonyahanka iyo labeenta iyo qoorweynta beelaha maxamuud bari hinjiile iyo kaski qabe kuwaas oo isaga kala yimid deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Xaysimo sidoo kale waxa shirkan ka qayb galay wafdi sare oo ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirada madaxtooyada khayraadka biyaha warfaafinta dib u dejinta wasiiru dawlaha duulista hawada xildhibaano ka kala tirsan golayaasha guurtida iyo wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Maroodijeex gudoomiyaha gobolka Xaysimo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo 12 maayir degmo oo ka kala tirsan gobolada Xaysimo Sanaag iyo Sool shirkan ugu horeyn waxa furay wakiilka garaadka beelahan Abdullaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo sheegay in shirku uu furan yahay wasiirada xildhibaanada dhammaan wufuudda Soomaaliland ee golayaasheeda waxaan uqaasha waxgaradka gabdhaha population faraha badan ee meesha isugu yimi dhamaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib alxamdulillaah ilaahay bay sugan keenay ilaahay sugan keenay baa mahad leh waa maalin wanaagsan oo aad iyo aad u micno badan maradina dadka inta laga isugu nimi shirkan ay Soomaaliland ugu timina uu yahay faro arrin aad u micno badan weeye khayr baa idin rajaynaa shirkina waa inoo furan yahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hoosba hadal leh hadalku maanta wuxuu marayaa furitaan waftiga waa soo dhaweynaa aad iyo aad dad mahadsantihiin geesnimada samaysteen halkan aad loogu timaadeen dadku waxbay sheegaan wax leeyahay dhulkaas waa dhul fogo lama tagi karo waa dhul rabshadeed talaabada aad qaadeen geesnimada oo idin ka mahadcelinayna waan idin soo dhaweynaa aad iyo aad dad mahadsantihiin khayr Allah siiyo rag baa jiray waftiga hogaaminaya baasha Ali Jaamac xildhibaano oday Ali Baasho in badan soo shaqeeyay waa ragga ka qayb qaatay inuu suuro geliya arrintan halkan maanta isugu nimaadno iyagana mar labaad baa iyagana u mahadcelinaya talaabo way bay qaadeen waftiga hogaaminaya baasha Ali Jaamac assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkana waa inoo furaya waxa kale oo jooga Suudaan Saciid Guuleed Muuse oo Suudaanka Cabdiraxmaan Harti ah insha Allah biidnillaahi kariim sida jadwalku yahay waxaan ku soo dhaweynayaa عاقل محمود أسكر تانا عاقل كسر دول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhaweeyno maanta magaalada Orbogays waxaan filayaa meelo badan baan idinku soo dhaweynay reer Orbogays waa dad aad عاقل محمود أسكر حضرنا وحن هذا الكسر دوينيا عاقل محمد حسن فلالو كسر دو مدن عاقل سلام كدب soo dhaweyn waxaan malaynayaa waad ka dhigteen anna qaybteena waxaan leeyahay ku soo dhawaada waftiga iyo wasiirada leh mas'uuliyiinta Soomaaliland soo dhaweyn u baahan shirkada iyo furiin dadweynaha aan ra'iisiya mid baan oranayaa saddexda gobol la sheegay Sool Sanaag iyo Xaysimo waxaan filayaa waxaad maanta meesha u timaadeen ma aha in wax la idin sheego in wax la iska qariyo wax la idin ka qarinayana ma aha waxaynu u nimi maanta halka dhamaanteen isugu nimi inaynu wada hadalno Soomaaliland uma aynu iman inaynu wax yar sinraahno ama hoos wax la isugu sheego waxaad ku niyad samaataan wixii halka ka soo baxay hortiina la soo dhigaya haddaad ku qanacdaana oo nagula qanacdaan odayaashayadana waynu ku wada qanacayna haddii aynu heshiin weynana dee walba meelaha naastaynu iska kala marmarayni idinku horta sidaa ku niyad samaada wax hoos la isugu sheegayaa ma jiraan waa dharaar waa maalin cad baa wax la isu sheegi doonaa haddii lahayd Soomaaliland iyo waftiga ka socda oo idin salaamaya waxaan idin leeyahay waxa la yiri nin durbaantumay laaq dalbay waxaan u malaynayaa idinka qudhiinu maanta hoos faquma jeedaan waxaad rabtaan wax idin gooya dadkana wax u tara wax la isku raaco ama lagu kala haro in badan baa waxa la lahaa dhulbaxanta waa mucaarad in badan baa waxa la lahaa Soomaaliland waxeeda iyo kooraheeda iyada iska sidata
waxaan umaleeyaa idina koorihii dhigte annana wada hadalkii ogolaana waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inay ka soo baxaan wax cid walba qanciya inay naga soo baxaan baan rajaynayaa waxaan rajaynaynaa waxayna anfaca oo aynu ku wada midowno oo inana aynu xabadda ku dhigno iyana ay baabuurta qoryuhu saaran yihiin kaga degaan inay halkaa inoo soo baxaan aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay tabashadii wax badan baynu wada hadalnay ragga iyagan halka maraya kolley anigu aan ka mid ahay 25 sanadooda u dambeeyay 24 ama 23 sanadooda u dambeeyay waxaanu nahaa tabliiq dhex maraya deegaanada dhulbahante xagga siyaasadda Soomaaliland dhib badan iyo problem badan iyo maag badan iyo wax badan baanu kala kulan laakiin saaka waxa farxad ii ah wax kastaba aan lagu soo dhicin ragayagii nooca ahaa waxa la oran karaa runtii waxa xusid mudan dad badan baa waxay yiraahdeen war waqtiga uun baa yimid raggii Soomaaliland ka qayb galay ama bilowgii ka qayb galay ee deegaankan ka soo jeeday waxay ahaayeen laf dhabartii iyo aqoontii iyo waayo aragnimadii Soomaaliland ee waqtiga isku keensibi waayay maxamed cabdulla sakhraan baa ku jiray fagada ku jiray waxa ku jiray hadii Allah xukmaayo ibraahim ciid baa ku jiray waxa ku jiray Fuad Aadan Cadde Ismaan Garaad baa ku jiray ragii hormuudka markaynu xagga ahayna inoo ahaabay ahaayeen waqtiga iyo waayaha ila kala duduway laakiin ragii Soomaaliland ka qayb galay ee deegaanka ka soo jeeday Soomaaliland cidi kama aqoon iyo karti iyo waay aragnimo badnayn marka ay dhan kasta tahay laakiin waxa jiray shicibkii iyo siyaasiyiintii baa markaa xanjadii ka kala dhalash oo isqabsan waxay xaqiiqdu waa sida maanta hadaynu isqabsanay ragaasi wax badan bay u soo qabteen dalka waa iyagana ilaahay ha u naxariistaan dhamaantood leeyahay iyo kuwa kale ee soo maray ee dhibaha soo maray qoladani marka ay Soomaaliland waagii ay dagaalamayeen ninka halkan jooga waxa la oran jiray xoogaa sidaas loo eegi jiray waxa la oran jiray warkani malaha waa heer hebil annaga qudhayadu haddii aan deegaankaaga iyo dalkaaga ninka siyaasiga ahi uusan si buuxda deegaanka uga tirsanayn wax badan oo aad awood lahayd iyo wax badan oo aad oran lahayd yaad ka hamranaysaa marka aadan raggaagii ku ogeyn inay xagga dambe joogaan waxa maanta noo ah inaanu raggii aanu kelmadda u oran lahayn ay maanta joogaan warsow sidaa maaha dawladuna waxba idinka rabtaa idinkuna waxbaad rabtaa dawladdu waxa ay idinka rabtaa ee siyaasadeed waa inaynu fulinaa oo u diyaar garownaa waxa aynu inagu rabnana xukuumaddu waa inay dawladdu u dhaga fududaadaan wixii awooda waliba waad nala faqi kartaano waxaad oran kartaan wartaama fulin kartaa waqtigan annaga moqorka iyo dhuuntiiba ah wixii ay gadaal ka fulin karaan iyo waxay hadda fulin karaan iyo waxa ay qaban karaan iyo waxa ay goobta ku bixin karaan intaba way arag baan u nahay oo faqaana hadaad naga dalbataan waanu idin faqi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin maanta waxay la tahay wax badan baa la isxantay عقال يا جراد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.